Soomaali Maxamed ay digniina idin soo diraya aroonkeer aniga qabiilka tahay aniga magacaasa ii muhiima maadaama aniga magacaas la ii dilaayo ma fahantay dadkan kaniisadahoodii la iibsaday masaajida laga dhisay suuq caalami ah ayaa laga gatay dhulalkii dhanha laga la wareegay businesska laga la wareegay way masiirsan yihiin way noo careysan yihiin lixda bilood ugu dambeysay commenti aad u foolxun oo hateful ah arkay oo Kenyaanka dadka ah ay soo qorayaan hadda action ay u bedeleen inayna afduubtaan oo ina dilaan qofkaaga haduu ka maqan yahay oo telefonkiisa inta laga soo waco lagu dhaho qofkaaga uu xanuunsan yahay meel hebel ugu imaa waxa ugu tagin sida gabdhaha ku dhacday hooyada inta la afduubta gabdhihii leer hooyadin soo doonta ee gabdhihiina la jarjaray is ilaaliya habeen madow ha bixin gaari inta lagu horgooyaa laga degsanaya dhiigeena baneesteen Soomaaliya isku badnaada is ilaaliya please. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ولا شوي ما ذي هذا ريني رومنا هاي إلا حلي إلا شل إلا ما تعب عبسيان ودار هرت إلهي أنا أمان سدو إن هالكم حاول تعسين يا أهلك إقرابت دي إيكي رياضين سد حديد مر إيش الله نيروبي ميدت كذا الصالي جاي أمد الصوماليات جارهان أمد كنا نيروبي إن سلام كذب النيوز كا وحلاقي عبادات قار إنش شيء كذا ولي إسفان سنين أما إسن مقلين هرت النيوز كو حن كم قلي أياربا إن دي شيء يو وحيابك كلته أني أعربه إن دي شيء فيديو جا وحو مهم كي هاي قفل البصومالي أو دك المجال لأن كينيا أما قفت قانون كينيا دك أنا دوتشر وشر كراي because وحوا very مهم واي عبسين سوى جهده واي إلهي أنا أمان سدو أنا قدل كان وحكونا قحوتي وحكونا ضد ومارتين بتقولي صادونني هذا نبتقولي كوين ولا واحد إلهي وهرت دل كان هنوقت ليجو دل وناكسن إن مدكو بعد هرت وحليري إن ماما يلو كبرت أيال التلي ماما ذا دتك قرب حملها لابد كبرت إذا هذا الشيء ما دلين متكمل أيه الشيء إن مركو واحد عدي وحليري ماما ذا سيدا نيسك أو قبر كهالليس فاميلي كاس إن قبر رير كاس قبلي دينتي رير كودا يكهاللايان قبر كمدا وحلوري سنة واحدة هذي maamada waxay soo aaday dhakhtar oo skinka ama maqaarka oo ku yaalo PBS mall ay soo aaday lahayd waxa u maleynayaa meeshii degan yihiin lama sheegin laakiin aan si kale waxa u maqlay in section 3 degan yihiin laakiin muu hubay ama isli meelaha aad ku leeyahay meel ka dheer ma aha okay marka maamada waxa la dhakhtarka ka soo aaday dan waxa wal gabdhaha waxa jirta gabar iyada dhashay iyo mid kale to kaazin yihiin ilma adeermiya ilma aqtimiya ilma idamiya ma garanayo then marka maamadii way soo wacayeen la gabdhaha markii dambe ilaa ay gaartay abaara 5 saac oo waqti dambe ay noqotay markii dambe gabdhii waxay go'aansadeen gabdhaha mid kale waxay jiraan sanadkooda midna waxay jirtaa 12 sano jir aad u yarta midna 22 sano jir ay jirtaa halahay then gabdhii waxay sameeyeen way soo bixeen la yiri ziisi kaamirada guriga markii uu war dambeeyay ayuu gaari sii raacay ayaa dadkaas ugu war dambeysay laakiin markii dambe waxay maqleen ama newska ama social media ka arkeen in meedad la soo dhigay Parkland iyo Park Road miya iyo Gonga miya maqan kadibna meedadkii markii la arkay si xul gabdhihii ay ahaayeen maamada wali waxa la dhigay magaalada meel ka baxsan Machakos la dhaxo ay meedkeeda la dhigaa la dhahay wali maamada gadaalaha meedkeeda laga helay okay hadaba horta la shaki fi waxa shaki ku jirin waxa waaye in dhacdada dadka dhacdada xun oo saana geystay inay yihiin hal group sababtaas u leeyahay horta dilku isku si ayuu ahay hadii la yiraahdo dilka jirkooda la googooy xubnaha qaar maqnaaya liiri waa la kufsadaa liiri adi waxyaabo badan saddex meelood kala dheer ha dhigaan laakiin dadka oo falkaas geysta shaki kuma jiro inay hal dad yihiin okay hadaba ani marka qiyaas ahaanteeda marka fikiray hal meel ay cilad ka iman kartaa maamada Allah u naxariistay dhankeeda waxa laga yaabaa maadaama maamo ahayd inay gaariga ay soo raacday 90% gaarigaas inuu ayada dhibaato u geystay sababtaas u leeyahay waxa waaye PBS mall waa meel Soomaaliyeed meel oo qof asagoo saa u soo taagan laga afduuba karo horta ma aha laakiin waxa laga yaabaa 60% gaari banaanka taagnaa oo taxi ah in iska raacday boqolkiina 40 waxa laga yaabaa in gaari oo polti ama online ka dalbatay in ay raacday sababta ay dileeyahay boqolkiiba 60 sababta oo leh gaari caadi ah raacday oo taxi banaanka iska taagnaa oo door tuug ahay sababta wax oo qofkaas oo information aan laga hay karo ma laha laakiin hadii uu qofkan taxiilaha oo poltiga uu yahay badanaa information kooda waa la hayaa inkastoo mararka qaar ay dhici karto gaari aad dalbanaysa
gaariga number plate kiisa iyo asaga isma laha ma fahanteen wuxuu ka soo wici karaa oo kaleeto inuu ka soo waco kale sometimes app ka dhaxdiis inuu ka soo waco taasna waa dhici kartaa sababta marka labadaas taxi midkood doonaba ha aadee amaamada inuu qaaday ayuu dhumiyay oo kas imaaga u dhumiyay wadadii ay garanaysa ahayn oo marsiiyay waa sida inay ila tahay sababtaas uu leeyahay gabdhaha waxa la maamadu waa soo socdaa dhiisay ilaa markii dambe gabdhii markay soo baxeen waa laga yaabaa in ay maamadii isla hadleen ay dhahdo waa dhunay kadibna ninka taksiga uu u tilmaamay maybe meesha ay joogaan kadibna gabdhihii taksiga meeshii markay uga degteen in ay taksiga kale raaceen kadibna oo ama meeshii ay markaas munaasabka ahayd oo loo baahnaa la geeyay in la geeyo oo dadka ninkaas ugu diyaarsanayo sababta waxaan aaminsanahay qof ma jiro raacayo taxi gaari niman kala sii saareen ma jiro maamada iyo ninkaas darwalka kaligood inay israaceen laakiin meel oo dad ugu diyaarsanaayeen inuu geeyay may fahanteen ilaa hadda xogta Kenya ma jirto dadka falka geest qof soo qabatay ama yani waliba ku raad jiraan lama helin oo ma dhigi kari laakiin aniga sida aaminsanahay oo yani maskaxdeyda markaa ka fikiray maamada yaa dhibaatada u geysan karo gabdhaha gaariga soo qaaday oo maamada ku soo raadiyay gaarigaas wuxuu eegay inuu waxba ogeyn sababtaas maxaa u dhahayaa ma wada waafaqi karaan maamada gaariga soo qaaday inuu gaarinta u soo diro waqtiga nasiibkaas oo meesha ku helo ma dhici karto gabdho waxa laga yaabaa inay gaari online ka dalbadeen inay gaari caadi iska raaceen waa laga yaabaa laakiin muhiimadda ani boqolkiiba 90 u siiyay inuu ninka darawalka ahay oo maamada waday oo dhahay waa dhunay oo maamada wada qaldan ka bixiyay oo ayadana oo gabdhihii markay soo raadiyeen asaga oo hagay oo yiri meesha saa joognaa markay meesha yimaadeen gabdhihii sidii lagu qabsaday ma fahanteen waa sidaas dhig karo taas marka aan ka gudubna ilaahay ha naxariisto siday noqotona waxaan rajaynaynaa in la soo saaro oo waa lagu raad jiraa okay midda kala raba point kala raba inaan ka hadlo hadda ka hor qisadooyin dhacdadan oo kale maray dhici jirtay ayaan dhaxdaas soo sas u dheereen laakiin ma ahayn wax oo la isabduubtay naagaha oo jirkooda ka ganacsado aan nimanka Nigerian wuxuu ku sameeyeen jireen dhowr mar sameeyeen in ay dileen ay jarjareen ay kadibna qashinka ku rideen markay hooshooda ay ka bagteen meesha lacagta ka sii lahaayeen naagay bixi lahaayeen way jarjareen ilaa Kenya ay soo rogtay hoteelada in uu qofka haduu qof kale soo booqanayo in laga dhigo waxyaabaha detailskiisa sharcigiisa meeshuu degan yahay lambarkiisa waxaas si loo aqoonsado qofkii uu u tagay iyo qofkii uu ka maxaa la raraa meesha tagay ma fahanteen oo mudnuucaas la saaray xitaa guryaha faaninjarada saas la saaray Nigerian-kan waa dadka ugu halista badan ee wadankan cabsi waa dabaqay dadka tuurayaan naaga dhilooyinka way soo wadanayaan waxa waaye lacag ay haystaan then markay soo wataan saas ayaga u jajarayaan ayaan dhaxdaas ma fahanteen dhowr dhacday laakiin tan ma ahayn tan waa mowduuc kaleeto mid kaleeto waxa rabaa inaan ka hadlo anaga Soomaaliyaana xil xun la soconaa xil xun ama socona maxmee marka qaar waxay ka imaadaan isliye ka imaadaan waxay imaadayaan Kilmani iyo Westland Parkland waa meelaha badan ay soo aadaan dhalinyaradeena hadaba dhalinyaro hadda kadib inaa xarjiina group isku soo raacdeen waa mid koowaad mid labaad taksiyaashiin Soomaalida iska raac inkastoo taksiyaasha Soomaalida ayagana waxay ku xun yihiin lacagtii inta la yihiin lacagtii waxay ka dhigayaan qaali that's why dadka u qaadanayaan polity marka walaalayaal wiilasha Soomaalida taksiyaashan adikana lacagta dadka ka raqiisiya taksigaas waxa laga yaabaa in meel oo 300 ama 200 ku aadaysa wuxuu dhaayaan kuna ku aadaysa ma fahanteen gabdho habeenkii ha soo bixinina ma dhacdo inay soo baxdo group wiilal isku jiro soo qaata hadii dhacdo gaariga kaliga inaad taxi soo raacdi habeen Soomaalida adduunka shirka wax laga siiyaa fahmi waa gaari taxi oo shir laga koray caalamkii iyaga leen ku arkay gadaala la fadhiistaa marka taxi soo raacdi gadaala laga fadhiistaa special kursiga asaga ku aadana la fadhiistaa sababtaas isku dhaay in case haduu intuu looga ka oo jailo gaari kaaga xirto uu ka loo gareysto uu kula fakado ceejile dhab ku sii baawurka idin la gadoobo labadiin inta kaliga lagu gogoylaa ama lagu kufsalaha ma fahanti because asaga uu istaajinaa naftiisa marab inuu dilmo qorsagaaro leh kula qabale kursiga nin oo qorsagaaro oo inta lagu haayo xoog ma ahan taas muqt macnaha baawur ma sii wadi kar muqt ma inuu stop gareeya uu ku qasban yahay ma fahanti kaligiisna waxa waaye markaas wax ma tiri karo is ilaaliya